هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، حلقتاني qaybtani waa qaybtii 14aad ee barnaamijkeeni tababarka nolosha guurka. ciwaanka qaybtani wuxuu noqonayaa waqtiga u dhaxeeya caqdiga iyo cursiga 8 talo. markii aanu soo dhameynay xalaqadii aanu soo dhaafnay ku soo dhameynay sheekooyin ku saabsan caqdiga, waxa igu kindhineed deen qaybtii ugu dambeysay oo aan idin ballan qaaday inaan dhameystiri doono. waxaanu ka sheekeynaynaa in caqdiga saxiixa ah ay ka dhalanayso arrimo 7 ah. marka aanu erayada kala bedelno ii guuri gabadheeda waan ku guuriyay ilaa waxa ka dhalanaya markaas arrimo 7 ah. midda koowaad xillu istimtaaci kullun min az-zawjayn. midda labaad meherkii la sheegay in la dhiibo. marka labaad midda saddexaad wujuubu nafaqadii ayadana waajib noqonayso, meherkiina waajib noqonayo. midda afaraadna gabadhu inay adeecdo saygeeda. midda shanaad in meeshaas ay ka dhalanayso xurmatul musahara. gabadhi aad guursatay hooyadeed markii aad dhahdid ii guuri gabadha waa ku guuri oo aabbaha kugu yiri hooyadeed waxay noqonaysaa hooyada oo kaleeto. xaraan ayay ka noqonaysaa guurkeeda ala ta'biid ila al-abad bay guurkeedu xaraan ka yahay bil musahara. midda lixaadna waxa waaye ilmihii meeshaas ka dhashaa waxay u sugnaadeen wiilkaas. gabadhaas hadday dhasho 9 bilood kadib wiilkaas ayaga dhalay. hadday dhasho gabadhaas 8 bilood kadib amaba 7 bilood kadib, dhaqaatiirta haddana waxay dhahaan maalmahan muddada ugu yar oo uurku gabadhu ay qaadi karto waa 6 bilood. sidaas kaleetana fuqahada taasay dhahaan. marka intaas wiilka ku dhasha cunuga ku dhasha waa cunugaas marka adiga dhalay. midda ugu dambayso ee 7aad ahna midda ugu dambayso ثبوت حق الإرث بين الزوجين. إنه إصلاحان وحماشة كسرنا إصلاحالكود. هدي لبدو ميت كمية أقول أنت عقدك مركود مالين أما لا مالين كذب أما 6 مالين بقى إلهي ما قدر أرنت صور عضاء لبدو وإصلاح يعني لحظة دحل بقى ويال. intaasi walaalayaal waa inta aan isdhahayay waxay ku saabsan yihiin caqdiga oo muhiimka ah oo idinka sheekay. hadda waxaan u galeynaa arin aad muhiim u ah, marxalad aad muhiim u ah dhanka guurka markii laga hadlayo. arrimo adagna ee dhacaan waqtigaas waa waqtiga u dhaxeeyo aqalgalka iyo caqdiga meherka markuu dhaco. annaga walaalayaal sida arkaysiin tilaabo ayaan ugu socnaa dhanka guurka. waxaanu ka soo hadalnay yeeritaanka islaamka oo inuu yeero guurka, kadib xukunka guurka, waxyaabaha dadka ku riixa guuritaanka, kadib waxaanu ka soo hadalnay tababar loo tababarayo dadka guurka u socdo, kadib seed u dooranaysaa gabadhu seed u dooranaysaa wiilka, doonashadii. waxaanu ka soo hadalnay caqdigii meherka markuu dhacayo. hadda adiga waad guursatay, caqdigaagu wuu dhacay, yacni maada aqalgalin weli, habeenka aqalgalkina lama gaarin, laakiin caqdigaagii heshiiskii wuu dhacay. marka waxaa jira waqti u dhaxeeya intaas. muxuu sameynayaa wiilku, gabadhu maxay sameynaysaa waqtigaas? maxaa habboon in lagu dhaqaaqo? tilaabooyinka habboon waxay waqtigaas. marka waxaan idiin haynaa hadda 8 talo oo ku saabsan waqtigaas dhexdeeda. midda koowaad waxay leedahay waqtigaas inuusan dheeraan. waa talo dhehayso in waqtiga u dhaxeeyo caqdiga iyo cursiga, aqalgalka iyo meherka markuu dhaco ha dheereenina, waqti dheer ha ka dhiginina. marka qaar waxaa dhacdo arday jaamacad dhigto oo sanadka koowaad dhigto gabar inuu doonto oo lagu mehriyo meher ku dhaco. waxaa lagu leeyahay gabadhan goormaad la aqalgalaysaa? wuxuu ku leeyahay wallaahi bas jaamacadda soo dhameynaya insha Allah, kadibna takhasus 2 sano ah sameynaya, kadib waxaan aadayaa 2 sano shaqada qaranka ah aan soo gudanayaa, kadibna mashruuci amal aan aasaasanaya, kadib aan guursanaya. yani meeqa sano waa intaas? 10 sano noqotay. ilaahay Allahu a'lam inay kala tagaana macquul ee waqtigaas
labada sano ugu horeyso inay ku kala tagaan ma sanadka ugu horeyso nasiixada koowaad waxay leedahay waqtigaas iyo dheeraanin gabadhan waa xaaskaagi inaysan ku dul qaadan macquul intaas ama adiga ba aad u dul qaadan ama inay waxyaabo inay ka dhexdhacaan dhibaato iyo dood inay ka dhex abuuro hadii gurigiina aad joogi lahaydaan adinka labadiina bas inay ku ekaalahay laakiin guriga hooyadeed hadday joogto waxa meeshaas laga maarmaan noqonayo in la soo gacmo galiyo oo wax la habeeyo khaasatan caa'ilooyinka iyo qoysaska aadka u weyn oo aadka u faraha badan dadka dhan baa meesha soo galaya say waxaan wax uga xaliyaan waxa jiro qoysaska gaar oo gabadhoodu markii laga guursado hooyadu ra'yi leedahay adeerku ra'yi leeyahay aabuhu ra'yi leeyahay walaashu ra'yi leedahay adeerku soo galaya wiilka adeerka asaga xitaa wuu soo galaya konton haweeney konton nin baa meesha soo galayso wuxuu ku leeyihiin muxuu ku soo gaday ninkaagi ma ku waday madcamki ma ku wada meel hebel maxaa la dhahay hadiyad hebel ma ku keenay walaasha ayaa jiratay moosan soo salaamin labadiisa gacan muxuu hadiyado ugu soo qaadi waayay labadaba waxa laga maarmaanay inuu baqiil yahay waxaan kugu talinayaa inaad iska dhaaftid hooyadu wax bay dheeysaa walaalku ra'yi leeyahay habartu wax bay dheeysaa gabdhaha waxa kugu talinaynaa inaysan koodi horeba hadalkaas maqlinba marka koowaad wiilashana waxa kula talinaynaa inay waqtigaas intay gaabin karaan oo ugu haboon gaabin karaan inay gaabiyaan nasiixadu waxa waa inay gaabato waqtigaas oo waqti yar noqdo dhan sidoo kale wiilka qoyskiisa kulli waa soo gacmeynayaan waa soo galayaan aabuhu adeerkii eedadii aaway xaaskaagi maxay u imaaweysay xafladan qabanay maxay u saacidi weysay gabdhaha kula dhashay ee barnaamijkan ugu saacidi weysay waxa noo dhashay wiil maxay noogu imaaweysay ayaan horeyta maray imaatay wajigeeda kuma farxin walaasha ma ee jeclamiya ku heesatamiya dhibaato iyo dood baa idinka dhexdhacayso waxa kugu talinayaa inay waqtigaas u soo noqon waqti dheer u dhaxay aqdiga ursiga midda labaad inaad dhexdhexaad ka noqotid ziyaarada booqashada adiga waxaad soo booqanaysaa guriga adeerkaaga gabadha aad guursatay ehelkeeda guriga soo booqanaysaa waxa muhiim ah inaad gurigaas booqashadaada dhexdhexaad ka dhigtid wiilba wuxuu ku leeyahay waa guursada gabadha walaal caadi waaye subax walba galab kaste habeenkii shaqadu ku imaanaya gurigu buu dhex joogaa sidii qof ka tirsan gurigaas way cunto siinayaan way waraabinayaan waxa laga yaabaa inay dhar xitaa siiyaan gurigiiyo dhex jooga waa qof kamid ee guriga xaq runta waxay tahay walaal adiga waxa tahay zooj saybata haybada leedahay makaanada leedahay sumcaha leedahay magaca leedahay shakhsiyad iyo sharaf baa leedahay hadii aad soo booqotid maalinta koowaad adeerka guriga ayuu ka furayo wuxuu ku leeyahay ahlan wa sahlan soo dhawaaw oo kugu faraxna inaan noo imaatay waa ku sugeynay aad baa u mahadsan tahay maalinta labaad marka imaad sidaas oo kale uu ka furaya wuxuu ku leeyahay soo dhawaaw waan ku faraxnay aragtidaada maalinta saddexaad marka soo baaqatid irido ka furaya wuxuu ku leeyahay soo dhawaaw ahlan wa sahlan fiiri erayadu waa yaraanayaan hal ay u go'ayaan maalinta afraad irido ka furaya asagoo kugu dhihin soo dhawaay ahlan wa sahlan ayuu gurigiisa galaya qolkiisa maalinta afraad gabadhiisa yar uu duraya asoo leeyahay qofka irida garaacaya ka fur maalinta lixaad waxa laga yaabaa inaad irida laga furin waxa kugu la talinayaa inaad dhexdhexaad ka noqoshid booqashada aad booqanaysid gurigaas maalinka sadaimaad waxa luminaysaa haybadaada iyo ixtiraamkaada waxay dhahaan qib wazid qibban yani guriga adeerka booqo oo soo salaan waxay dhahaan maqnaaw oo ku dar maqnaasho oo iska maqnaaw micnaheedu yani guriga adeerka soo salaan oo soo booqo gurigi mararna ka maqnaaw maalmana maqo ayadu way ku xiisaysaa gabadha adigana waa u xiisaysaa ilaa uu adeerka kaaga xiiso oo eedo iyo gabadhii ku xiisaan ehelkeedii ilaa booskaagi iyo haybadaadii ay noqoto mid ilaalsan oo taagan غب وزد غبا تزد حبا مقناه وحد مركز زيادة مركز مقناه حبي عشقي أد معنيه زيادة سنة إن لو حيسو أو لو احترام بس زيادة سنة مركز سعاد مقنته كدمنا ولا لا كبر ركسنا هذا دبنا مالهن هواينك وين مقلايان حاسكاجا dhalinyarada qaar waxay sameeyaan markii uu aqdiga dhaco oo heshiisku dhaco oo gabadhu guurto wuxuu leeyahay waxa iska jeclaalaha inaa gabadha maalin kasta soo salaamo oo la joogo oo waqti la qaato oo arko wuxuu ku jiraa yani qiraam iyo cishqi iyo riyo iyo jacayl oo jilaya micnaheedii gabadhina uu sheegaya mar labaad iyo mar saddexaad uu ku leeyahay saas waay kaama maarin igaraal noqdo hadii gabadhu ay kugu aragto ku xirnaashaha intaas la eg waxa laga yaabaa inay ka faa'iideysato ku xirnaashaha iyo jaceelka intaas la eg oo qabtid ee ku hagto meel alaal meesha rabto yamiinan way saar bidix iyo midig seerabta ee ku wado waa annaga waa ixtiraameena xaaskaygu waxay ii tahay milul ayn wal basar laakiin meesha waxa ka jirta maamul
aniga ayada waxyaabaha noo yaala sharciya isku fahnaa noo kala yaalo waxaa jiro tilaabooyin aan ka talaabsan karin ayaduna aysan ka talaabsan karin oo labadeenaba ina xukmaayo oo na qabanayo sidaasoo kaleeto gabdhahana waxa ugu baaqayaa inaysan ka faa'iideysan nimankooda iyo inaysan ka faa'iideysan zoojkooda jaceelka badan ee uu qabo inaysan ka faa'iideysan ee markaas marka inta ka faa'iideysan seerabaan ee ula dhaqmaan seerabaan ee ka yeeshaan ee ku ekaadaan booskooda qaaliga ah mararka qaarna wiilasha saasay sameeyaan aniga waxa kuula talinayaa inaad dhexdhexaad ka noqotid runtaa waxay tahay walaalayaal ma haboono inaad qalbigaaga oo idil oo dhammaystiran siisid ilaahay maahane qalbigaaga ha siinin ilaahay subxaana wa tacaala qof ahayn xaaskaaga ha siinin saygaaga ha siinin cunugaaga ha siinin walaalkana ha siinin abbaayadana ha siinin intaasoo idil aniga waa jeclahay maxaa yeelay waa addoommo ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay ugu jeclaanaya jaceylkooda iyo naxariista aan u samaynayo laakiin qalbigayga ilaahay subxaana wa tacaala oo keliyaa leh mar waxaa dhacday in nin loo dhalay cunug uu jeclaaday aad uu u jeclaaday ninkaa wuxuu ahaa nin saalix ah qalbigiisu wuxuu ku xirmay cunuga markii uu gaaray cunugiisii sanadkii 10aad waxaa ku dhacday shil gaari oo uu ku dhintay aabbihii wuxuu ku sigtay inuu waasho wuxuu ku sigtay inuu caqligiisa lumiyo oo ku dhufto asaga dhanba wuu xanuunsaday xanuun aad u faran xanuun aad u weyn maxaa yeelay wuxuu waayay jaceylkiisa ugu weynay waxaa soo booqday mid kamid ah saalixiinta wuxuu ku yiri sheekh wuxuu qalbigayga ku xirmay cunugayga wuu dhintay maxaan sameeyaa waxaan ku siganayaa inaa waasho wuxuu ku yiri xaq bay kugu tahay sababtoo ah waxaad jeclaatay qof dhimanayo haddii aad jeclaan lahayd qof aan dhimanaynin maadan xanuunsadeen maadan ku sigteen inaad waalato qalbigaaga oo idil ha siinin ilaa midka aan dhimanayn ee baaqiga noqonayo waana ilaahay subxaana wa tacaala dhib ma lahan inaad jeclaatid xaaskaaga dhib ma lahan inaad jeclaatid saygaaga laakiin ku ekaaw qalbigaagana oo idil ilaahay subxaana wa tacaala si inta soo hartayna waa addoommo ilaahay subxaana wa tacaala aad ugu khidmaynaysid ugu dhawaanaysid ilaahay subxaana wa tacaala khidmadooda inaad dhexdhexaad ku noqotid booqashada waa nasiixadeeni labaad waqtiga u dhaxeeya aqdiga iyo cursiga waxaa inoo hartay 6 kaleeto oo aanu ku dhammaystiri doono haddii ilaahay subxaana wa tacaala ka raali noqdo goosgooska kadib ina suga waxaa la sheegay in nin carooday ee khalad sameeyey markuu careeday xaaskiisiina ka sii daba samaysay ee ayadana ka sii daba carootay ee ka daba dartay dhibaatana ka dhex dhacday markii dambe